وهاجاك برنامج كأننا ما أنت وحكوا سابسين هي قصة آد عجيب قصدني مهمة إلى هي درادة قرآن كريم كآية لو شاقي هذا الشيء كذا يشاكوين كلمة كادنين يسو waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saarto oo la socoto sheekooyinka dambe ee muhiimka ah aan ka sheekayn doono haddaan gudan galno sheekada aan maanta ka hadlayno waxay ku saabsan tahay qisata asxaabul ukhdud sidaad ogsoon tihiinba waxaa lagu sheegay quraanka kariimka ah gaar ahaan suuratul buruj ilaahay wuxuu leeyahay qutila asxaabul ukhdud annaari dhaatil waqud idhum 'alayha qu'ud وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد سيكوبا أي قرآن كأشياء شاكدا لكن وحا آدي آد أفهفاهي حديث دير والنبي عليه الصلاة والسلام لقوريي هذا هدان فيري إنه قابك تاريخيها ندو وحلين قصدا وحان قدقلي دونا goobta ay ka dhacday qisadani cidda ay ku dhacday cidda samaysay iyo waqtiga ay dhacday intaba haddaan ku bilaawno qisadani waxaa la tilmaamayaa taariikhyahanadu sida ay sheegayaan inay dhacday nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam xilligii la soo saaray waqti 40 sano ama 50 sano ka hor nin boqora oo loogu yeero yuusuf bin sharaxiil kuna magac dheeraay dunawaas ayaa wuxuu xukumi jiray gobolka loo yaqaan najraan ee ku yaala dalka Sacuudi Carabiya gaar ahaan xuduuda ay la wadaagaan dalka Yemen dunawaas markiisii hore wuxuu haystay diinta yahuuda laakiin markii dambe asaga ayaaba sheegtay ilaahnimo dunawaas waxa la taliye u ahaa nin sixirool ah oo aad u daaweyn ninkii sixiroolaha ahaa ayaa wuxuu dareemay inuu duqoobay kadibna wuxuu ka baqday inuu geeriyoodo sida daraadeed wuxuu kula taliyay ninkii boqorka ahaa inuu keeno wiil yar oo sixirka uu u baro boqorkii ayaa wuxuu soo helay wiil yar oo aad u caqli badan kadibna wuxuu amar ku siiyay inuu ka barto ninka saaxirka sixirka si uu uusan ula dhiman wiilkii yar wuxuu bilaabay inuu subax walba ku kallaho ninkii saaxirka ahaa wadada uu u sii maro ninka saaxirka ahaa waxa deganaa nin wadaad ah ama raahib meel gooniya asoo ku cibaadeysta oo meel wadada dhinaceeda degan wiilkii yar ayaa bilaabay inuu dhageysto ninka raahibka ah ama wadaadka ah intuusan gaarin ninka sixiroolaha ah muddo ayuu sidaa waday kadib waxaa garaacis iyo dil ku bilaabay ninkii saaxirka ahaa maxaa yeelay wuxuu ka soo daahi jiray waqtigii uu ugu talagalay wiilkii yaraa wuxuu ka cawday dhibaatada uu ku hayo ninka saaxirka ah arintiina wuxuu u sheegay wadaadkii ama raahibkii wadada fadhiyay ee uu dhageysan jiray raahibkii ayaa wiilka yar kula taliyay inuu ku yiraahdo ninka saaxirka ah waxa ay soo daahiyay reerkayga markuu reerka u tagana uu ku yiraahdo waxa ay soo daahiyay saaxir sidii ayuu yeelay wiilkii yaraa muddo markuu wiilkii yari dhageysanayay ninkii raahibka ahaa sidoo kalena saaxirkii uu sixirka ka baranayay ayaa maalin maalmaha kamida wuxuu la kulmay xayawaan aad u weyn oo wadada fadhiya oo dhamaa wadadii ka goostay dadka ka baqayaan wiilka yar ayaa waxa ku soo dhacday fikrad ah inuu tijaabiyo raahibka ama wadaadka iyo ninka sixiroolaha ah midka xaqa ku taagan labadooda sida darteed wuxuu naftiisa u sheegay inuu tijaabiyo labadooda midka xaqa ku taagan wiilka yar ayaa dhagax qaatay wuxuu yiri ilaahow haddii arinta ninka wadaadka ah agtaada looga jacayl badan yahay ama agtaada ay ka wanaagsan tahay ninka sixiroolaha arinta u hayo ilaahow dil xayawaankan kadibna dhagaxii ayuu ku ganay xayawaankii weynaa oo wadada taagnaa wuu dhintay dadkiina waxay bilaabeen inay wadadii nabadgelyo ku maraan sidoo kale wiilkii yaraa wuxuu noqday wiil mucjiso ah oo arrimo aad u fara badan oo aan suuragal ka ahayn dadka asaga la midka ah sameeya sida inuu dadka baraska qabo oo kale iyo kuwa inuu daaweeyo wiilkii yaraa ayaa u sheegay arintii ninkii wadaadka ahaa ama raahibka ahaa raahibka ayaa ku yiri niyahow waad iga wanaagsan tahay heer waxaad gaartay aanan anigu gaarin sida daraadeed dadka kula midka ah ee sidan oo kala ah waa la ciqaaba waana la dhibaateeyaa marka haddii lagu dhibaateeyo ha isoo tilmaamin oo ha isoo sheegin wiilkii yaraa ayaa wuxuu bilaabay inuu daaweeyo dadka indhaha la iyo sidoo kale kuwa cudurrada kala duwan qaba awoodda ilaahay siiyay wiilka yar ayaa waxaa maqlay nin indhala oo boqorka saaxiibkiis ahaa ninkii ayaa wuxuu soo qaatay hanti aad u fara badan iyo hadiyado fara badan kadibna wuxuu u yimid wiilkii yaraa wuxuu ku yiri wiilow waxaan maqlay inaad dadka daaweyso
sidaa daraaddeed waxaan kaa codsanayaa inaad i daaweyso wax alla wax hadiyado iyo maal wadana adaa iska leh. wiilkii yara ayaa ku yidhi anigu wax ma daaweeyo, laakiin ilaahay ayaa daawada haysta oo wax daaweeya. laakiin waxaan kaa doonayaa hal shardi, haddaad samayso waan isku dayayaa inaan ku caawiyo. ninkii ayaa ku yidhi maxay tahay arrintaad iga rabtaa? wuxuu ugu jawaabay ilaahay ayaad aaminaysaa, kadibna ilaahaan kuu baryayaa, asagaana indhahaaga iyo araggaaga kuu soo celinaya. ninkii meeshii ayuu ilaahay ku rumeeyey, kadibna wiilkii ilaahay ayuu u baryay, ninkiina indhihiisii ama araggiisii ayaa usoo laabtay. ninkii boqorka saaxiibkiisa ahaa wuxuu ku laabtay boqorkii, kadibna boqorkii ayaa arkay ninkii wax arkaya. wuxuu ku yidhi yaa kuu soo celiyey araggaaga? wuxuu ku yidhi ilaahay ayaa ii soo celiyey. boqorkii oo yaaban ayaa ku yidhi ma waxaad leedahay ilaahan aniga ahayn? wuxuu ku yidhi aniga iyo adigaba hal ilaah ayaan leenahay. boqorkii wuxuu amray ninkii in la xirxiro oo la garaaco, kadibna laga soo saaro meesha uu ka keenay arrinkan. si aada ayaa loo cadaabay, kadibna wuxuu tilmaamay wiilkii yaraa oo arrintiisa ka dambeeyey. wiilkii ayaa la soo qabtay, isagana sidoo kale waa la garaacay waana la ciqaabay. kadibna wuxuu tilmaamay ninkii wadaadka ama raahibka ahaa ee markiisa horeba diinta baray. ninkii ayaa la soo qabtay, kadibna waxa lagu amray inuu ka laabto wax aaminsan yahay. hadduu diidana laba cad loo kala jari doono. ninkii ayaa diiday inuu ka laabto iimaankiisii. minshaar ayaa la soo qaatay, kadibna laba cad ayaa loo kala dhambalay. sidoo kale ninkii araggu usoo laabtay ayaa lagu amray asna inuu ka laabto, haddii kale lagu sameeyo sida lagu sameeyey saaxiibkiis. asaguna sidii saaxiibkii ayuu sameeyey oo waa diiday inuu ka laabto diintii ama iimaankii cusbaa oo u qaatay. waa la kala jeexay, minshaar ayaa laba cad loogu kala dhambalay. kadibna waxaa soo haray wiilkii yaraa oo asagu aad iyo aad muhiim ugu ahaa ninka boqorka. boqorkii ayaa amray wiilka yar in la qaado, kadibna la saaro buur dhaladeed, halkaasna lagu amro inuu ka laabto waxa uu aaminsan yahay. hadduu diidana buurta laga tuuro. askar ayuu ku daray. markay buurta dhaladeeda geeyeen ayuu wiilka yar wuxuu ku yidhi allaahuma kfiniihim bima shi't, ilaahow iga qabo dadkani sidaa doonto. kadibna si mucjiso ah ayaa buurtii ula gilgilatay nimankii askarta ahaa oo buurtii ayay ka daateen. wiilkii yaraa oo nabad qaba oon wax dhibaataa gaarin oo lugeynaya boqorkii u tegey. boqorkii oo yaaban ayaa ku yidhi askartii iyo dadkii aan kugu daray xaggee aadeen? wiilkii ayaa ku yidhi ilaahay baa iga kaafiyey ama ilaaha iga badbaadiyey. kadib isla markiiba wuxuu amray in doon la saaro oo badweynta la dhex geeyo, kadibna doonta laga tuuro hadduu ka laaban waayo waxa uu aaminsan yahay. sidii ayaa la yeelay. askartii ayaa qaaday wiilka yar, kadibna waxay la aadeen badweynta. badda bartankeeda markay marsiinayaan ayuu ku amreen inuu ka laabto waxa uu aaminsan yahay. kadibna wiilkii wuxuu ku yidhi ilaahow iga badbaadi kuwan. doontii ayaa la gilgilatay, baddiyaa ku kacday, nimankiina hirkii ayaa qaaday. wiilkii yaraa oo ilaahay si mucjiso ah kusoo badbaadiyey ayaa ku soo laabtay ninkii boqorka ahaa. boqorkii oo yaaban ayaa yidhi xaggeed geysay nimankii aan kugu daray? wiilkii yaraa wuxuu yidhi ilaahay ayaa iga kaafiyey ama iga badbaadiyey. isla markaana wuxuu u raaciyey boqorow ima dili kartid haddaadan samaynin waxa aan kuu sheegayo. boqorkii ayaa ku yidhi oo maxaan sameeyaa? wiilkii yaraa ayaa yidhi maalin maalmaha ka mid a iskugu yeer dadka, meel bannaan oo aad u weyn iskugu keen dadka, kadib tiir ugu xir. kadib waxaad qaadataa fallaartayda, waxaad tidhaahdaa bismillaahi rabbi alghulaam, kadibna fallaartaas igu gan, sidaas ayaad igu dili kartaa. boqorkii sidii ayuu sameeyey. wuxuu isugu yeeray dadkii uu xukumayey, kadibna tiir ayaa lagu xiray, kadibna sidii dhahaya bismillaahi rabbi alghulaam ayuu ku ganay fallaartii. wiilkii yaraa fallaartii ayaa ku dhacday, sidii ayuuna ku dhintay. laakiin dhibaatada uuna filanaynin ninka boqorka ee meesha ka dhacday waxay ahayd in wax alla wixii meesha joogay ay yidhaahdeen aamanaa birabbi alghulaam, waxaan rumaynay ilaahii wiilka yar. waana midda kaliya uu ka dagaalamayay ninka boqorka ah. la taliyayaashiisii ayaa ku cawday ayagoo leh wixii aad ka baqaysay ayaa dhacay. dadkii oo dhani waxay rumeeyeen diintii wiilka yar aad kula dagaalamaysay. kadib boqorka oo ahaa nin aad iyo aad u dulmi badan wuxuu amray in la qodo godad aad u waaweyn, kadibna dab lagu shido. dadka qaarkii waxay sheegayaan in muddo aad u dheer la ururinayay xaabada iyo waxa lagu holcinayo godadkaas dabka lagu shidayo. kadib waxay bilaabeen inay dadkii ku guraan
qof kasta oo diido inuu ka laabto waxa uu aaminay. qisada dhammaadkeeda waxaa ku jira hooyo cunug yar wadatay, kadibna markii godka qarkiisa la soo istaajiyey ee lagu amray inay ka laabato haddii kale lagu ridayo godka iyo holaca, ayay wiilkeedii yaraa saas u fiirisay ayadoo u baqaysa. wiilkii yara ayaa ku yidhi, hooyo ha baqin, xaqa ayaad ku taagan tahay. sida waxaa labadoodiiba loogu tuuray godkii holcayay. qisadan oo qur-aanku ka hadlayo, ilaahay wuxuu leeyahay, qutila asxaabu al-ukhduud annaari daati alwaquud إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. dadkani waxa ilaahay wuxuu leeyahay waxa looga aarsaday oo kaliya inay ilaahay rumeeyeen. taariikhyahanadu waxay sheegaan in ninkaasi si silaca iyo dhibaato ah loo dilay markii dambe oo boqortooyadiisii la dumiyay, lagu soo duulay, kadibna badweynta uu ku dhex dhintay isagoo cararaya. qisadan waxaan ka faa'iideynaa qofka mabda'iisa ku taagani inuu bulsho dhan bedeli karo. sidoo kale waxaan ka faa'iideynaa carruurta yaryar in lagu tarabiyo ama lagu barbaariyo inay si sax ah ilaahay u aaminaan oo ay u bartaan. haddaad danaynayso qisooyinka noocan oo kala ah, fadlan isku day inaad faafiso qisadan, sidoo kale inaad subscribe saarto, iyo weliba inaad nala wadaagto aragtiyadaada ku saabsan arrimaha noocan oo kala ah iyo qisooyin aad jeclaan lahayd inaan ka sheekayno. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.